maanta waxaa ka dhoofay gegid diyaaradda Aadan International Airport ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Kheyre wafdi uu hogaaminayay ka tirsan golo wasiiro iyo xubno ka shaqeeya xafiiskiisa ayagoo sii jeedo dhankaas New York soo uu qayb galay shirka qaramada midoobay ka dhici doono bishan September marka wasaarahana waxa xagga khudbada ku leeyahay wuxuuna halkaas ka soo jeedin doonaa khudbad ku saabsan horumarka ay gaartay xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliyeed taasoo ah xagga siyaasadda amniga horumarka isla xisaabtanka sidoo kale maanta waxaad arkaysaa inuu ra'iisul wasaaraha raacay diyaarad flight commercial ah ama Juba Airways oo Kenya u raacay iyadoo taasna ay horseedaysay in dhaqaalihii la bayqaamiyo ama waxun la seef gareeyo marka aad iyo aad u mahadsantahay